وحلين مسلمين تدب بدنا dadka ma dhib ka daayaan war muslim dulkiisa la isku haystaa war waxa la dhibay waa muslim waxa meel uu ku soo kaadiyay waa muslim warna daaya maya marka waa la isbartay marka hada barigoor waa la soo qarin jiray Soomaa ayaguna waxooday la soo baxeen muslimiinta waxooday la soo baxeen waxana u dilay muslimiinta waxooday la soo baxeen shir hada ugu dambeeyay oo ay dawladaha waaweyn ay sameeysanayeen waxa la yaabay ummadda inay isu bedeshay yaani islaamku soo faafaya wax yar la idinka tusaa waxaa jirta gabar asturan oo xijaaban oo madaxweynaha Turkiga u turjumaysa si afkiisu ku hadlaaya dad qaar waxay dhamaan Ingiriis muu ku hadlo Ingiriis muu ku hadlaa af kale markaad ku hadlayso ogow waa lagu gumaysanaya waxaad xor ku tahay afkaaga inaad ku hadasho waxay Ingiriis marka hadda dadka qaarkii inaga Soomaali mushkil ay haysto Ingiriis intuu ku hadlo wuxuu u maleeyaa wax fiican uu sheegay luqadii isticmaalka oo luqadiisi aan ahayn ayuu ku hadlayaa madaxweynaha Turkiga kuma hadlay marka af Ingiriis kuma hadlay wuxuu ugu hadlaynin luqadiisu ku hadlanaya bas ayaga luqadooda ku hadlayaan adi taada ka soo tag oo taydii ugu hadal waa gumaysi aan wada hadalno qof luqadiisa ku hadlo gabadh waxa jirta marka hooyadeed waa gabadhii ugu horeysay oo ayadoo asturan oo xijaaban baarlamaanka Turkiga bariga cilmaaniyadu ay haysatay ayaa gashay markaasay ka soo eriyeen baarlamaankii waxayna u soo eriyayaan muuqaal diin ayaa ka muuqda xijaab hal eriyo waa la eriyo meelahaas iska aaday gabadha yarta hadda oo Ingiriiska ku turjumaysa yaa ayadoo xijaaban yaa madaxdii adduunka awoodda isbidaysay ayaa soo hor fariisatay macnaheedu marka muxuu yahay haddaad shalay xijaab nagu eriyanayseen meeshii ugu koreysay maanta ayay gabadheenu xijaaban tahay maxaad ka qaadi kartaan waay marka risaala la isu diraa meesha waradaad muslimiintu u malaynayseen bari inay hurdeen oo diintooda lagala dagaalay maanta way soo jeesteen diintooda inay qabsadaan ayay diyaar u yihiin waxaana uu daliil qadiyada ugu adag maanta caalamka ka jirta waa qadiyada reer Falastiin dawladihii carabta oo ciidamadoodii wata ayaa yahuudu cagtay marisay way kala eriday dagaalku ugu dambeeyay 67 waxa loo bixiyay waa dagaalkii 6 maalmood carab oo dhan intay soo urursatay ayaa 6 maalmood kali ah cagta lagu mari waa la kala eriyay gantaal ay ridaana yahuud meesha u gaaray waligood 70 sano la soo dhaafay ma la gaarsiin hada yaa gaarsiiyay المقاومة الإسلامية الفلسطينية يعني مقعاس إسلامية وحسنا معه معايا أود وحولية هاي إلهي ونوجي هاي وهذا عالم كي يابسي دولة دي عندما وين وتوحي قبل وين أيا وحاقبتي ضد شعب أو إسهابيي أو مقع يكون على ما ينو نقضي مقع إسلام خلاص محاول يلا مرك أدونكم مرك تاريخه إسبدل الربطة إسبدل كاسة وحالها diintan ilaahay inay soo noqonayso adduunka sidii ay bari u xukumi jirto u xukumi doonto shaki kuma jiro nabiga sallallahu alayhi wasallam yaa ku bishaareeyay wayna imaan doontaa inaga bis waxa la inaga rabaa baabuur boosteeje yaala oo dhaqaaqi raba ayay diintu la mid tahay ee si aad baabuurkaasi adigu sharaf ugu yeelato ma raacay oo diinta ma u gargaare mise intaad baabuurka ka harto yaa dad kale ilaahay intuu u soo bixiyo ay baabuurka raacaan ayay diintii sharafteeda soo celinayaan ساس إلهي وحوله وإن تتولوا هدات جيستان إذنكم ودين تؤكلمين ويدان يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم يعني كوكلوا إلهي كان صنايا أظن ما أنا خسارس بمعنى أذوق الدين الآن وحبا من نقونيس لكن دين تو أذيق الآن تا وحبا نقونه ودين تا إلهي هدي يقفكوا حيرانتاي ما ينا دقاق ذنبا وعلى صوت توقلها وعلى إله ورنيو أذيق وحيرانتاي دين الإسلام خير الله كسيا كالنا لا دقاجي ورميد الدقاجينا اسك ديلان لكن عيدك ku xirantay ma jirto adi la halaagsamaysa adi la dhumaysid maayna diinta way soconaysa ilaahay yaa u gargaaray man kaana yadunnu an lan yansurahu allah fi dunya wal aakhirah qofka u maleynaa ilaahay inuu nabigiisa diinta u gargaarayn waxa la yiri falyamdud bisawi ila as-samaa'i thumma liyaqta falyanzur hal yudhimuna kaydu ma yaqid xarig intuu meel kore ku soo laalaadiyo oo qoorta uu gashto ha isu soo rido bimaana ha isdeldelo way macnaha waxba kama qaadaysid adun baa dhiman maayna إمس الظالم ودين تاع الإسلام كأني بابيان كتلا قلي أيان ما أنت جوجين
diinta islaamkana xooggeeda iyo awooddeeda uu kor u soo kacaya oo ay noqotay diinta ugu badan caalamka maanta oo dadku ay galayaan waa diinta islaamka waa diinta ugu badan hadda ayadoo mixnada iyo shiddada iyo dhibka lagu haysaas ay tahay ayay haddana socotaa maxaa yeele diintu daatadeeda ayay awood leedahay innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu laxaafiduun marka in jidkii ambiyada la raaco muhiimadoodii la ogaado mujtamaca in la hagaajiyo hawshaas in la qabto ayaa loo baahan yahay marka insha allahu tacala ummaddeena soomaaliyeedna waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacala mustaqbal fiican waana ficlan waa saasoo shacbiga soomaaliyeed ka shacbi ahaan diinta wuu jecel yahay laakiin mushkilada waxay naga haysataa in dadkan ay ayagu awoodda intay gacanta ku dhigtaan ay dantooda iyo masiirkooda ay isku tashtaan ayaa laga hor joogaa laakiin weligoodba ha warwareejiyeen mogtahay waa ugu dambays waxaa la shimbirtii kor u buubta risqigeed dhulku yaallaa dhulka la imaanee wakti la inaga qaadayaan maahine shacbigan soomaaliyeed wax diin islaam aan ahayn oo lagu karaayo ma jirto marka hadday dib u dhigaan ama dib u sii dhigaan ama dib u sii dhigaan maalmo way noo dib dhigi karaan laakiin inay baabacdo oo diinta islaamka lagu kala tago soomaali muslim laga waayo taasi ma dhacayso walan yajcala allahu lilkaafiriina cala almu'miniina sabiila ina allaha yudaaficu can aladiina aamanuu ina allaha laa yuxibu man kaana khawaanan yani ilaahay dhaalimiinta wuu qaban doonaa lakin waxaa la rabaa inaan shaqo qabsanno innaga oo ah tarbiyatu awlaadkeenna waxbarashadooda wanaajintooda yani mustaqbal weyn ayaa la rabaa laakiin maanta keliya ku cabiraan maanta dhibaana haysta way noo dhammaatay hadheen tartiib nabiga sal lla ly slam isagii saaxiibkii mawlaahu zayd ibnu xaarisa oo laba ah yaa magaalada intay ku goobatay ayagoo laba bes ah iyo dhagax say u wadeen bannaanka u saareen markaasaa malku jibaal intuu imaado wuxuu yihi kuwan saa kuu galay buuraha ma ku dhuftaa kulligood ma dhammeeyaa markaasuu yihi ma aha iga dhammayna dhaaf waxaan rajaynayaa dhabarkooda ilahay inuu ka soo saari doono dad ilaahay caabudaya ii daawo yidhi marka waxaa la rabaa tartiib sabir intii la yeesho beri saan ahaan jirna maanta ma nihin odayaasha weydiiya masaajidka hadda dhalinyarada ay u badan yihiin xilli waxaa jirta odayaashu markaas qabriga isu diyaarinaya ay imaan jireen ay tukan jireen dhalinyaradana ay duurka iska aadaayeen oo xagga war maa tukataan maya dhalinyaraana aniga waktigay lama gaarin hadda maanta tukan karaa isqoyqoyn karaa salaad kuwa qaarkoodna waxay dhihi jireen suraalka intay feeraystaan war maa tukatido haddaan feeraysto feerada suraalka iga jajabays haddaan tukado marka suraalku ha ii taagnaado maantana waa kaas soon haddii la joogo war maa soontido soonka kuur hadduu uu soomi hadduu kale iska dayn laakiin maanta alxamdulillah iska dhaaf ramadaan iyo soonkiise yani carafada waxaad arki doontaan maalinta carafada oo sunnada halkaas in la soomo magaalada waxaa umalaysaa ramadaan in la joogo ummaddan marka khayrkeedaa badan way isa soo tari doontaa juhdiga intaas ummadda gelaysa waa kaas ani waxaan soo gaaray weliba aniga oo odayaasha iska iskoolka aan dhiganaynin gabdhaw yaa xelo khimaar yar aan madaxa u saarna oo wacdinayno oo saas oo kalea oo la dhagax tuuraayo oo le maxay khimaar madaxa u saaranayaan maantana magaalada dhan wada khimaar eh tartiib diinta ilaah wata ha degdegin adiga nabi wuxuu yidhi sal alla alay slam intay u soo dacwoodeen rasuulka ilaahayow dabaana lagu dhalaaliyey saanaa nala yeelay ilaahay maa noo berid kuwaa naga qabtee wuxuu ku yidhi dadka idinka horreeyey dhulka intii loo qodo oo la dhex geliyo oo miishaar la keeno oo madaxa loo saaro yaa lagu qali jiray miishaartaasa lagu jiijiidi jiray marka iska sabra ilaahay baan ku dhaartay layutimana allahu hada alamra diintan waa dhammaystirmi doontaa xataa yasiira araakibu min sancaa ilaa xadaramuut laa yakhaafu ila allaha wadiiba calaa hanami yani diintan maray halkaas gaari doontaa oo gabadh ciraaq ka soo safartay keligeed ayadoo ay kacbada soo aadi doontaa ayadoo waxay ka cabsanaysa aysan jirin marka diintan ilaaha iskale isaga ilaashanaaya innagana sharaf waxaa inoo ah inaan u khidmayno diinta marka ilahi waxaan weydiisanaynaa inaynu inaga dhigin kuwa la bedelaayo ee inaga dhigo kuwa la adeegsanayo si ay diinta ugu khidmeeyaan allahuma istakdimna walaa tastabdilna allahuma istakdimna waxaa ilaahu na adeegso walaa tastabdilna hana bedelin inaan diinta ka shaqayno ilaahuna waafaji ee idinku waad gaabiseen waa idin bedelaa haddii na la dhaho hay-ad yar ama se shirkad haddii lagaa ruqseeyaaba waa xanaaqe waxaa leedahay shaqadaa laga soo eriyey maxaa u malay ilahay hadduu ku ruqseeyo yidhaha diinteeda orod iiga tag iigama shaqaynaysid wax ka xun ma jirto allahuma istakdimna walaa tastabdilna ilaahu noo kaalmee ilaahu yani diinta inaan ka shaqayno ee hana bedelin ummaddeena soomaaliyeedna dowrkaas culimmada aan tilmaamaynana in qof walba dhinaciisa ka ilaaliyo qof laga maarmo ma jiro ummaddeena waa is wada dhammaystiraysaa kii qur-aan dhigaaya iyo kii xadiis akrinaaya iyo kii hawl kala qabanaya iyo kii ganacsi ummadda ugu shaqaynaaya yani waxaa la rabaa kulligeen wafcalu lkhayra lacalakum tuflixuun khayr ka wada shaqeeya si ay u liibaantaan rabbana aatina fi dunya xasanata wafi laakhirati xasanata waqina cadaaba annar rabbana laa tuzig quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma innaka anta alwahaab wasala allahuma cala sayidina muxamed